waqtiba waxaa jirtay seeftaasoo ahayd mid lacnadaysan ama habar ku dhacay. Seeftaas waxaa lahan jiray nin boqora. Ninkaas boqorka meel buu ku taagtay oo uu ilaashan jiray ilaa ay ka geeriyooday. Kadibna seeftii waxaa lagu soo tuuray saxara. Rag ayaa waxay isku dayeen saxari ka soo helaan seeftaas. Qof walba gacanta ku dhiga ama isku day inuu haysto, isaga ayaa wuxuu bilaabay inuu isbedelo, dadka u dhawaana uu dilo. haddaba seeftaas maxay tahay? boqorkaasina yuu ahaa? seeftaasna ugu dambeyn yaa gacanta ku dhigi doona? maantana animigaas waxaa noo soo qulaasay 4 xalqo ugu horeysay. waani ogay waxaad iga sugayseen animigi yaraa wiilkara aasananaa, kaasi oo ahaa animigiisu mid aad u xamaasad badan. waxaad ogaaday asxaab inaan nii sii wadi doono animigaas. iminkana inoo bilaaba animigeena maanta. animigu wuxuu ku bilaamayaa raggaas waa saxare. waxay ka baarayaan dahab, iyagoo dahabka iska raadinaya ayaa mid kamid la hadlo. wuxuuna ku idhaahdaa meesha waxaa ku aasilaan jiray seeftaasoo laga lahaa nin boqora, kaasoo intuusan dhiman seeftaas ku sameeyey lacnad ama lacnad ayuu saaray. markaas wuxuu ku idhaahdaa seeftaas maxaa yaa looga dan leeyahay? markaasuu ninka kale wuxuu ku idhaahdaa seeftaas soo saarano waxaan noqonaynaa dad qaniyiina oo lacag haysta, awood ayaana yeelanaynaa oo magaalada ayaan u talinaynaa. markaas wuxuu idhahdaa seefta aan raadino. kadibna seeftii bilaabin inay raadiyaan. ugu dambayna seefta ay helaan, iyagoo faraxsanoo seeftii inay soo saartaan ayaa waxaa dushooda ka yimid helikabtar taasoo saaran yihiin raggii booliska ahaa ee dowladda shaqaynayay. markaasa ninkii ugu sarreeya wuxuu ku idhaahdaa raggii kale la dagaalama askarta oo xabad ku fura. markaasa nimankii way la hadlaan ninkii waxna ku idhaahdaan boolis wanaga itaal badnaadeen, waxayna haystaan qoryo khatara. markaasa ragga wuxuu ku idhaahdaa isdhiiba haddaba. markaasa askarta wuxuu ku idhahdaa ninkii isdhiiba soo bax. ninkiina wuxuu isticmaalaa seeftiisa, wuxuuna usoo dhaqaaqa dhankii booliska. markaasa ragga wuxuu ku idhahdaan isdhiiba ku idhahdaan. wuxuu isku dayaa inuu la dagaalamo, laakiin booliska ayaa xabad ku fura. seeftiina waa laga qaadaa, waana laga adkaadaa. seeftii waxaa loo ogaya ninka xukuumadda ugu sarreeya. ninkiina wuxuu bilaabay inuu la wareego oo uu seeftii geliyo meel qalaba oo ku ilaaliyo. markaas boolisku way og yihiin seeftan dhibaatada ay leedahay, waxaana seefta xadanin ninkaasoo amaal qabeen. ninkaas isagoo iskaga jira hoteelkiisa oo waqti iska qaadanaya ayaa booliska ugu soo gala. kadibna seefta ay ka qaas dhahaan, laakiin wuxuu isku daya inuu la dagaalamo. waxay bilaabeen in xabad ku furaan oo nolosha ku gubaan, ayna ka soo qaadaan seeftii oo ay boolisku ku dhigaan gacanta mar labaad. haddaba iminka ayay bilaamaysaa xamaasadda animiga. ninkii askarigaha ugu sareeyey booliska ama taliyooga ahaa, ninkii wuxuu isticmaalay seeftii lacnadeeda ku faaftay ama haaladiisa seefta. ninkiina wuxuu noqdaa qof shar leh oo saydarada ayaa ka luntay, waxaana uu laayay askartii gebigoogaba. markaasa dhanka kale waxaana na tusayaa qoyskaasi isku faraxsanyiin. waa nin iyo naagtiisa. gabadh waxay ku tiraahdaa ugu dambeyn waan dhali rabaa oo waxaan rabaa inaan kuu sheego cidda aan dhali rabo, laakiin anu ma garanayo ciidan dhali rabo, yani inuu wiil yahay gabadh yahay ma garanayo. ee ahaan tagno dhakhtarka. kadib dhakhtarka iyagoo raba inay soo aadaan dhakhtar, yani waxuu naqaanaa hosbitaal oo dariiqa maraya ayaa hal mar iyagoo isla hadlayo unba odayga hal mar istaagaa. islaanta waxay ku tiraa maxaa ku helay? waxay aragtaaba isagoo dhabarka la geliyay midi oo odayga afka taagayo oo naxsan yahay oo madaxii dhidhig ka yimday oo yani uu geeriyooday. markaasa islaanta waxay bilaabeen inay qayliso, isku naxdo ku tiraahdo ninkii maxaad samaynaysaa? markaasa ninka wuxuu ku bilaabay inuu gabadh iska garab dhaafo oo ma dila iyadoo ka qalleeya. iyadoo yaaban waxay samaysan garan la ayaa waxay go-aan ku gaadhay inay kaga aargudato. ninkiina wuxuu soo aadaa dhankii magaalada. dadkii magaalada markuu efeefeeriyo wuxuu arkaa gabadh jaamiciyadoo meel iska taagan. gabadhi wuxuu bilaabay inuu qoorta ka gooyadana oo dhiig meesha ka wada dhigo. ninkii isagoo dilay waxaasoo dada ee askartii u shaqaynaysay laayay ayaa hal mar waxaa ka baxda shartii seefta. kadib ninkii caadigiisa ku soo laabtaa, wuxuuna idhahdaa maxaa sameeyey? gabadhii meydkeeda garab taagan yuhus arkaa, wuxuuna idhaahdaa maxaan sameeyey? isagoo walwalsan ayaa hal mar dhabar kala geliya seef. yaa ka geliya kula tahay? gabadha ayaa ka gelisay, wayna ka aargudatay. waxayna tidhaahdaa waa ka eygii dilay ninkaygii. markaasaa gabadh waxay maqashaa qaylada booliskii. kadibna waxay bilaabeen in luuqis ku qariso oo yacni la dhuumato seefta oo xaggaas ku qariso, iyadoo meesha ku dhabaraysa ama isku qarinaysa. waxaana la tusayaa laba nin, labadana wasdagaalayaan. markaas mid ka mid waa laga adkaadaa. marka labadan ay kala adkaadaan ayaa gabadhii aan usoo laabano. gabadheedu meesha ka joogta oo walwalsano maxaan sameeyey ama yani waxaan igale waa maxaa sharka. iyadoo walwalsano ooyeysa ayaa waxaa kasoo bax makhluuq ama yani makhluuqa sharta ay ku jiray seefta. gabadhii uurka lahayd ama hooyada ahaydna uu dilaa. haddaba inuu yara xaga u maray ilmaher waa actarka animigana, nasiib wanaagsana uu badbaadaa. markaasaa animigu wuxuu isku jaraa nin odaya oo iska maraya dariiq. markaasuu wuxuu maqlaa ilmeher ooyaya. kadibna wiilkii yaraa meesha ku imaadaa, wuxuuna ku arkaa wiil yaroo naqan oo ooyaya. wuxuuna bilaabay inuu wiilka yar oo korsado oo xagga ka qaada dariiqa. marka dhacdooyinkaas waxaa ka soo wareega sanado fara badan. waxaan arkaynaa qofkaasina xadiid ayuu ka saaraya dab. qofkaasina qof kale ma ahan ee waa actarkii wiilkeeni yaraa. markaasa animigu wuxuu isku jaraa gabadhaas guri ay ku jirtaa, wayna iska dhiganaysaa, waxayna ka fikiraysaa wiilka yar meel bay kusoo wada koreen, waxbayna soo wada cuneen.
waana walaalo laakiin iyadu way jeceshahay jacayl walaaltinimo ay qabtaa reerka laga soo laabana wiilkii yaraa xadiidii la sameynaya aabihii ama adeerkii ama ninkii soo karsay uuna ogyahay inuu ninkan soo karsaday oo uusan aabihii ahayn markaase gabadhi waxay yimaadaan saaxiibadeed waxayna ku idhaahdaan ka waran haddaan kugu darno saaxiibkeena ugu fiican iskuulka ama ninka ugu fiican iskuulka ee ugu darajooyinka sareeyeel aduu ku jecel yahay laakiin aduu ma jeclid markaase waxay ku tiraa gabadh yareed anigu hadda jacayl waxaas diyaar uma yihi ee haddaa inigu jeclaanaysa ama aad guursanaysiin guursada gabadh yaroo xishoonaysa ayaa asxaabta iskaga timaadaa waxayna imataa gurigii waxaana la kulantaa wiilkii gaay wiilkii waa aktarka ilmigeena waxaan u magacaaba gaay waxayna ku bilaabanaysa salaanta ku tiraahdo see tahay mase wiilku wuxuu bilaabay inuu ihtimaam siin haw ku idhaa waa fiicanahay ee adu noloshaada ka waran mase ku tiri waa fiicanahay mase gabadh waxay ku tiraahdaa mar walba waa cadhaysanta waad aamusan tahay maxaa ku yidhi farxaan iska dhig mase gabadh wax bilowna gudinteeda wax ku jarjaray inay faraha la soo gasho laakiin gacanta ayay qabtaa markaase waxa la hadla ninkii ka sareeyay gabadheer walaalkeed wuxuuna ku idhaahdaa adigoo addoona ku soo korsanay ee mad ku dhiiratay walaasha gacmaha ku qabatid mase gabadh waxay ku tiraa aniga khaladka lahaa ee walaalkay wax ma geli khaladka ma lahayn ama walaalkayga khaladka ma lahayn iska daa laakiin ninkaas waxa ma aqbalo wuxuu bilaabay wiilka inuu ku jiido markaasa meesha waxaa yimaada adeerkii soo korsay wiilkeer wuxuuna ku idhahdaa gaay waa fiican tahay nin dadaal badan ayaa tahay ee iska karaalo wiilkeyga suu kugula dhaqmay kaalin waxaa rabaa ina meel ku geeyo kadib meel ayuu geeya wuxuuna ku idhahdaa meesha waa meeshan ku geystay 10 sano kahor kaa soo qaaday ee waraabuhu ugu cuni rabay ee maanta ma waxaad go'aansanaysaa in aniga ila noolaatid maadaama oo gaadhaystay 10 sano iyo inaad magaalkaaga raacdid oo nolol googooni aad samaysatid markaasaa wiilkeena wuxuu ku idhaahdaa adeer anigu meelaan kaaga socday ma jirto waad soo korisay waraaba iyo dhul waxay cuni rabaad iga badbaadisay saa daraaddeed meel aanu u socday ma jirto adiga ayaan kula noolaanay cimrigayga waxaana kalagu shaqaynaa samaynta seefaha xagaasna wacday ku kala maraan inay weligood kala fogaanin markaasaa nimbigu wuxuu isku jaraa xafladda waxaanan tusaanin ninkaasna sharaabi iska cabayaa waxaanu yimaada mudiirkiisa ama maamulihiisa kaasoo timo jaalo leh wuxuuna ku idhaahdaa waxaa rabaa inay helo seefta lacanadaysan cidda haysata ma garanayo mase seefta wuxuu ku idhaahdaa waa kaaga digaya inaad hayso seeftaas waa in noloshaada isbedelaysaa haddaa mar gacanta ku dhigtina waxa laga yaaba in qoyskaaga aad u dhamaysid oo seeftaas waxay leedahay lacnad ama lacnadaas qofku markuu taabto lacnadaasna qofku hadday u imato jidhkiisa ay ku baahdaa qofka ugu horeeya ee uu seeftaas ku dilayna cid kale ma ahan waa qoyskiisa oo qoyskiisu waxay ula ekaadaan dad xunxun oo isaga soo weerar raba saasna waxay ku kaliftaa inuu qofku dilo qoyskiisa oo cid kale mal dilo markaasaa ninka wuxuu soo dhaqaaqaa dhankii seeftu taalay wuxuuna ku idhaahdaa seeftan ayaa raba ina kaaga sheekay saaxiib ama mudiir seeftan waxaa lahaan jiray ninkaas wuxuu lahaa seefo aad u badan seefahaas mid ka mid a ayuu maalin maamaha ka mida samaystay markuu samaystay seeftii ayaa waxaa soo weeray jiminkiina wuxuu bilaabay inuu ka adkaado intuuna ka adkaan waxaa jiray xajar yar ama dhagax yar dhagaxaasoo ah dhagax dheemara dhagaxaasnu seeftu ku dabaqay ama ku waxeeyey kadib dhagax yara seeftii wuxuu bedelay mid awood badan seeftiina wuxuu bilaabay inay xakamayso jinkiina saas ayuu ku galay seeftii xaggaasna ka soo raacday lacnad markaan leeyahay dadka qaar ba mooda wax weyn lacnad macnaheedu waa habaar weysaax dhanka kale usoo laabana wiilkii gaay soo iskala jooga adeerkii ama ninkii soo korsaday ayaa adeerkii soo korsay wiilkeer wuxuu la hadlaa wiilkiisi wuxuuna ku idhaahdaa wiilkeer gaay haddaan soo korsannay ma ahan inaad gumaysatid mid kale arrin kalaa kuu sheegayaa seefta lacnadaysana magaaladoo dhan dadku raaraadinayaan cid kale ma lahan ee markuu wiilkeer saa usoo dhashtayba isagoo seeftaas haysta ayaan arkay seeftaasina qofka keliya xakamayn kara ama kantarooli kara waa wiilkan yar waxaan kaaga digayaa inaad maalin dambe la dagaalantid ama wax cuqdada u qaadi wiilka yar miskiinka ah midda kale beri waxaan leenahay shir kaasoo wada qaban doona ragga tuulada uga awoodda badan leh si raggaasna dhiigooga ay seef ku shubayaan qofkii seeftaas ee dhiiggiisa u shaqayso ama awood bata ayaa seeftaas la wareegi doona ama seeftaas xakamayn doona qofkaasna cid kale ma noqone ee waa gaay seeftiisaa loo dhiibaa kadibna isku saraa kadibna seeftii wuxuu bilaabay ka soo baxo jinkii weynaa jinkiina gabadhii bilow in la dagaalansaado maadaama jidhkeeda ay xakamin karin laakiin gabadhii jinkii waxay u malaysaa walaalkeed waxaana isku dayda in seeftiisa kaga geyso qoortii laakiin waxa soo dhex gala gaayna gacantiisa ay u dhigaa gaayna gacanta ay ka go'da dhacdooyinkaasna waxaa kasoo wareegatay muddo 2 toddobaada waxaa lagu idhahdaa seeftaas waxay leedahay mucjisadaas qofka gacanta soo celinaysa marka ay kasoo wareegta 1 bil laakiin wiilkaa yar xanuun ayaa uu dareemaa muddada 2 toddobaada mana caafimaado gabadha ay imato waxayna ku tiraahdaa aniga waxaasoo dhan sababkooga ee waan kaa raali gelinayaa markaasuu wiilku wuxuu ku idhahdaa waxaasoo dhan ma joogo wuxuuna bilaabay inuu qabriga hooyada yimaado oo qodqodo ku idhaahdo adiga waxaasoo dhan sababiga adiga ayaa ay dayaxay oo hooyada caanaanto dhan kala soo laabana xafladii iyo raggii jooga meeshii ee wiilkeera maalqabeenka curyaanka ahaa ayaa wuxuu idhahdaa seefta waxaa rabay inaa iibsado iskadina seefta ayuu iibsadaa wuxuuna soo saartay gaadhigiisii isagoo wadada la maraya ayaa waxa kasoo arbaxa nin kale wuxuuna ku idhahdaa waxbaa raba inaan kaa qaato laakiin waxa kuma sheegayo maasuu ku idhahdaa iska caddahay ee haddaad awood leh kaala qaado
intaasaan kusoo gabagabeynayna saxaab maanta labadeenaa xalqo labada xalqee kalena oo reer waaban diyaariyey inagana i ballan qaadayna muuqaalkan gaarsiin doontiin wankee maca salaama waa shuufuku fi xalqa jaay